Assalaamu calaykum muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay tobanka dal ee adduunka ugu nolosha qaalisan wadamada dunida ku yaal aad ayay u kala duwan yihiin dhinaca maciishada iyo nolosha iyada oo wadamada qaar ay yihiin kuwo aad u qaaliya halka qaar kalena ay yihiin kuwo nolol ahaan jaban warbaahinta Al Jazeera ayaa daabacday muuqaal ku saabsan tobanka dal ee dunida ugu qaalisan nolol ahaan iyada oo kasoo xiganaysa qiimeynta oo uu sameeyay website-ka World Figure. Xogtan ku saabsan nolosha wadamada ayaa laga sameeyay kharashaadka ku bixi kara hal qof oo ku nool goobahaasi la xusay. Tobanka wadan ee ugu qaalisan dunida ayaa waxaa kaalinta koowaad ku jira Bermuda. Bermuda waa ismaamul goboleed hoos taga dowladda Ingiriiska kuna taalla waqooyiga badweynta Atlantic-ga waxaana caasimad u ah magaalada Hamilton. Ismaamul goboleedkan aan weli Ingiriiska ka hoos bixin ayaa noqday meesha ugu qaalisan dunida ee qof ku noolaan karo iyadoo qofka kaliya ay bishii ku baxayso celcelis ahaan 5,000 oo doolarka Mareykanka. Tirada dadka degan ayaa gaaraya 65,000 oo qof. Beedka dalku wuxuu ku fadhiyaa 350 kiilomitir oo isku wareega. Waxaa la yaab leh in kirada hal qol oo qof bil deganaada ku kacayo 2,675 doolar bishii iyadoo kharashaadka ugu yar uu ku cashayn karo hal habeen uu yahay 30 doolar. Wadanka labaad waa Jasiiradda Cayman waxa uu qofku ku noolaan karaa bishii 3,387 doolar. Jasiiradaha Cayman ayaa ah sidoo kale maamul goboleed hoos taga wadanka Ingiriiska kuna yaala galbeedka badda Caribbean-ka iyadoo caasimadda jasiiradda tahay magaalada Georgetown. Tirada dadka ku nool ayaa gaaraya guud ahaan 63,000 oo qof. Jasiiradaha Cayman ayaa ah halka labaad ee dunida oo dhan ugu qaalisan Bermuda kadib. Qofka ku nool jasiiradahan ayaa celcelis ahaan bishii ku filan karta lacag dhan bishii 3,387 doolar bishii. Sidoo kale jasiiradahan ayaa caan ku ah shirkadaha ugu waaweyn dunida maanta iyadoo lagu qiyaaso 100,000 oo shirkado ah dunida ugu waaweyn ay halkaas ka diiwaan gashan yihiin. Hal habeen oo aad seexatid qol hurdo ah oo ku yaala caasimadaha ayaa ku kacaya kharash dhan 83 doolar. Kirada hal qol ayaa bishii noqonaysa 1,924 doolar. Hal koob oo bun ah ayaa sidoo kale qiimihiisu joogaa 7 doolar. Wadanka saddexaad waa Denmark waxaad bishii ku noolaan kartaa 3,312 doolar. Denmark waa dowlad ku taalla waqooyiga Yurub. Caasimadiisu waa Copenhagen. Tirada dadka ku nool ayaa gaaraya 6 milyan oo qof. Denmark ayaa qiimeyntani noqotay wadanka saddexaad ee dunida ugu qaalisan waxaana qofku celcelis ahaan ku noolaan karaa bishii 3,312 doolar. Wadanka afraad waa Switzerland waxaad bishii ku noolaan kartaa 3,162 doolar. Dowladda Switzerland ayaa noqotay dowladda afraad ee ugu qaalisan dunida oo dhan. Wadankan tirada dadka ku nool ay gaarayaan 9 milyan oo qof. Celcelis ahaan bishii qofka waxaa ku filan kara 3,162 doolar halka qolka kirada ahi uu gaarayo 1,366 doolar. Koobka bunka ay gaarayo 5 doolar. Wadanka shanaad waa Iceland waxaad bishii ku noolaan kartaa 2,802 doolar. Wadankani wuxuu ku yaalaa waqooyiga badda Atlantic-ga. Celcelis ahaan qofka bishii wuxuu ku noolaan karaa 2,800 oo doolar. Tirada dadka ku nool ayaa gaaraya 340,000 oo qof. Kirada hal qol oo hurdo ah ayaa gaaraysa 1,236 doolar bishii. Hal waqti oo cunto ah ayaa sidoo kale gaaraysa 12 doolar halka koobka bunka ay yahay 15 doolar. Wadanka lixaad waa Luxembourg waxaad bishii ku noolaan kartaa 2,751 doolar. Wadankani waxa uu ku yaalaa galbeedka Yurub. Tirada dadka ku nool waa 62,000 oo qof. hal qolood kiraysataa bishii waxa uu gaarayaa
$1,322 koobka bunka ayaa halka uu marayo $6. afarta waddan ay noo hadhay waxaanu kusoo qaadan doonaa muuqaalkeena xiga. Wassalaamu calaykum.